السلام عليكم. سوري بعد الصاحب بيال waa ib aadam ama ibrahim aadam. waxa waaye muuqaalkan muuqaalka hore waa ka duwan yahay. waxa waa banaanka u soo baxnay muuqaal caadi ah ayaan duweyna macnaha. marka hore cod ayaan wax kusoo gudbinaynay. yani waa iska sidii uun codkunba wax kusoo gudbin doonaa, laakiin mararka qaar maaragtay insha allah waxaan rajeynaya inaan muuqaala caadi ah aan soo duubi doono. banaanka usoo baxnay saaka almost saacadu waa sagaalkii, laakiin maaragtay waqti hore xaggaan imaaday. marka hadda fikradda inaan hadda muuqaal duubo ayaa hadda igu dhalatay. marka hadda wax gaaro maaragtay hadda muuqaalkan nooga sii hadlayna ma lahan, laakiin waxay iga qabatay maaragtay inaan waqti isla qaadano oo maaragtay maadaama marka hore cod un aan wax kusoo gudbinaynay. yani hadda weli idan ma hor imaan doono oo hadda yani kaamirada hadda ma soo hor istaagi doono, laakiin insha allah next muuqaalada wixii hadda ka dambeeyo waxaa laga yaabaa muuqaalada qaar inaan kusoo gudbiyo hab muuqaal ah anigoo kaamirada soo hor fadhiisanayo. runtii hadda waxaan joogaa meel ay dhahaan Hyderabad, India. waxaan joogaa Hyderabad, India. wadadan aan qaadayna xoogaa waa soo wareegsanayna. waxaan joogaa Hyderabad, India. Soomaali badan ayaa runtii halkan joogo. badanaa Soomaalida halkan waxay u joogaan waxay u badan tahay 3 waxyaabood ama 4 waxyaabood bis kale. waa mid adiga waa 3 waxyaabood. midda ugu weyn oo marka ugu muhiimsan ayaa marka waxay tahay waxbarasho. sorry aan dhihi caafimaad. yani midda ugu weyn oo marka ugu muhiimsan oo dadka xaggan u joogaan ayaa waxay tahay maaragtay caafimaad, yani health issue. dadka badankooda xaggan joogo waxay u joogaan maaragtay caafimaad ay u joogaan oo dadkooda xanuunsan yihiin. run ahaantii dee qof wadankii ka soo waday caafimaad oo halkan keenay waad dareemi kartaa. waa maaragtay waa xaalad maaragtay inta badan aan xoogaha sahlanin. qofka wax wadankiisa ka soo wadi karo oo wadan kale caafimaad u keeni karo waxaas dhihi karaa waa wax aan sahlanin, yani cid kasta way dareemi kartaa. marka ilaahay maaragtay inta xanuunsan ha caafiyo, dhammaanteen ilaah caafimaadka noo ziyaadiyo. marka midda labaad haddaan u gudbo oo maaragtay dadka halkan ay u yimaadaan inta badan waa maaragtay waxbarasho ma dhihi karo, sababtoo dadka waxbarashada u imaado ilaa xad waa yarihiinan aan jeclahay. yani laakiin dadka inta badan aan arko yani waxa ugu horreeya waa caafimaad. midda labaad waxay noqotaa maaragtay dadka lotteriga maaragtay Mareykanka ku guuleysto maaragtay, ama sidoo kale dadka baxayo Mareykanka oo kaleeto dadka isku wadayo maaragtay waa xaaskeyga oo kale iyo waxaas ay u badan yihiin. ama sidoo kale adiga qof maaragtay safar ah ama qaxooti, xataa qaxooti ahaan qof ku baxayo, sidaasay u badan yihiin inta badan dadka labaad qaybta labaad soo gelayo. markaas kadib ayaa waxaa imaanayo number 3 ayaa imaanayo. markaas kadib ayaa waxaa imaanaya marka number 3 oo ah waxbarasho. yani waxbarasho ayay u joogaan. marka waxaan ka hadlaynaa Soomaalida, fahanti. caafimaadka dadka u imaanayo waa badan yihiin oo yani wadamo kala duwan ay ka yimaadaan dadka caafimaadka ku yimaado inta badan. balse Soomaalida markaan ka hadalno qofka yani waxa ugu horeeya dadku u yimaadaan waa caafimaadkaas. waxa labaad ayaa wuxuu noqonayaa marka bixitaanka ama lotteriga qofku guuleystay ha ahaado ama ha ahaado qof si kale ugu baxayo ama qaxooti ha ahaado. marka midda saddexaad ayaa waxay noqonaysaa waxbarasho. marka dhalinyarada jooga inta badan xoogaha waxbarasho ahaan ay u joogaan. marka 3daas qodob inta badan dadka xaggan u joogaan. janalkeena waxyaalaha uga hadalno yani xiriir lama lahan waxaa hadda ka hadlayno ama ka sheekeynayno, laakiin janalkeena waxaa inta badan uga hadalnaa horumarinta nafsa. laakiin janalkeena inta badan waxaan uga hadalnaa maaragtay horumarinta nafta iyo maaragtay sidoo kaleeto financiga aan kusoo darnay, sidoo kale aan ka hadalno sida cryptocurrency oo kale iyo waxyaalahaas, iyo midda kale ugu muhiimsan oo ah luqadda Englishka qaabka qofku u horumarin karo. mafahantay. waxaan rajeynaa muuqaalkan waa iska maaragtay muuqaal aan iska duubayo iska normal ah
waxaan rajeynayaa inaad ku raaxaysan doontaan oo maaragtay inkastoonan kaamirada hor taagnayn oo maaragtay idan iyo arkaynin muuqayga haddana meeshan yaroo maaragtay iska yara cagaaran ayaan iska soo aaday subaxdii inta badan ku lugeeyaa xaafadda inta ka soo lugeeyo ayaan halkan la ku imaadaa inta badan kadibna waan laabtaa adii xaafadda ilaa 2 kilomitir camal ay u jirtaa xaggana haddaad 2 jiiro 3 jiiro gelisid waa iska 3-4 kale marka lugtu way fiican tahay socodka aad ayuu u fiican yahay xaggana oo yara laabanayna socodka aad ayuu u fiican yahay dhakhaatiirta inta badan waxay ku taliyaan qofka maaragtay inuu physically active ahaado it doesn't mean inaad shaqaynaysid xafiis aad joogtid yacni waxaas macno ma samaynayso macnaha waxaa sameynaya waxa weeyaan ugu yaraan maalintii 30 daqiiqo inaad maaragtay socod samaysa xataa haddii aad activity kale samaynayn sida maaragtay activitiyada waxa ugu badan oo maaragtay sida gymka oo kale iyo waxyaalahaas laakiin socodka wuxuu ka mid yahay marka physical active-ka يعني physically active inaad ahaatid ayay ka mid tahay inaad maaragtay aad socoto oo aad socod samayso marka waxaan soo wadnaa insha allah muuqaalo ayaan soo gudbin doonaa oo aan maaragtay ku horumarinayno luqadda insha allahu tacaala sidoo kale waxaan soo wadaa application aad muhiim ugu ah sidoo kale waxaan soo wadaa application aad muhiim u ah oo maaragtay oo aad ku horumarin karto luqaddaada dadka doonayo inay practice ka sameeyaan يعني بدنا حكوا سؤال عليا إن هاد براكتس سميسو أيا مرتي كعامل سنة لقد هذا حرمرته صح إن وحن إذن سو هذا application كاسو ما عرفتي كعاونا إن لا براكتس كريسو براكتس هذا سميني سا application كاس إن شاء الله next video أيو نخون دونا سيدا رجينا إن شاء الله next video أيو نكدي دونا إن مركب ميل حوجه هذا بدن جوجانا سو مراعي ساسا مقال كوجري مركب إن sidaasaan samayn doonaa haddii la yiraahdo muuqaalada soo socda insha allah waxaan maaragtay ku soo gudbin doonaa qaab muuqaal aan rajeynaa inaan maaragtay ku soo gudbino xataa applicationkaas aan rabo inaan idin soo gudbiyo ama aan idin la wadaago waxaan rabaa maaragtay qaab muuqaal ahaan inaan idin soo gudbiyo maadaama aan rabo inaan idin tuso macnaha qaabka aad u isticmaali karto iyo qaabka aad maaragtay aan practice oo la sameyn karto maadaama aan iri waa inaan waxa la sameyn kartaa practice oo maaragtay wala sheekaysan kartaa wuxuu ka caawinaya inaad la sheekaysato ama practice-ka aad la samayso marka si aan idinkugu sharaxo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa marka insha allah la yiraahdo qaab muuqaal ahaan aan maaragtay idinkugu soo gudbin doonaa marka eeshaan dadka iska imaadaan iskaga Soomaalida xataa way yimaadaan maaragtay Soomaalida xataa way yimaadaan marka nin agaas waxa iska neef u qaadanaa fant alaabtaan khatar waa dadka waxay u malaynayaan maaragtay ma sha Allah dadka alaabtaan oo maaragtay neef qaadashada dadka waxay u malaynayaan wax maaragtay iska fudud Soomaalidana waxay u malaynayaan yani wax iska normal ah laakiin waa wax maaragtay muhiim ah wallah badan ay ka caawinaysaa ana waan sameeyaa taan fadhiisto waan sameeyaa neef aan qaataan fant marka muhiim waa wax badan ka faa'iiday laakiin anagu ma fahansanin ya marka muhiim waaye aan yara fadhiisanayna marka حوا إلهي عظمت كانوا زياديو حول بو مرتي حقنا اسكت فوق اللي يسميه حوا هاير marka saasaan rabaa insha Allah taala adiga muuqaalada soo socdo waxaan maaragtay idin ku tusin doonaa midka ugu horeeyo application-kaas aan ku tusin doonaa insha Allah taala iyo qaabka aad maaragtay practice koola sameyn kartid iyo qaabka aad ula sheekaysan kartid iyo qaabka aad maaragtay naftaada u bari karto insha Allah waxaan rajeynaa maaragtay inaad dhamaantiin caafimaad qabtaan waxaan ka codsanayaa ama ku dhiirigelinayaa haddii aadan weli kanaal ku soo birin inaad ku soo birto oo subscribe saarto oo ugu yaraan hal qof oo asxaabtaada ka mid ah xataa midba xaggan mooto qaylisinay ama ugu yaraan maaragtay asxaabtaada hal qof oo ka mid ah xataa ama familkaaga aad la wadaagto aad u share garayso kanaalka muuqaalkana like aad saarto wax yar ayaa nooga haray maaragtay in kanaalka oo meesha ilaa 10k aan gaarno insha Allah taala 10k inaan gaarno ayaan rajeynaynaa kulay sanadka anagoona gaarin inuu dhamaado laga yaabaa laakiin wax walba waa idinka macquul insha Allah waxa dhici karta 10k inaan dhaafnaba sanadka bisha ka dhiman ama labada bil ka dhiman marka December iyo November ayaaba ka harsan already November waa bilaabatay marka
aad iyo aad ayay umahadsan tihiin waxaan idin rajaynayaa maaragtay farxad iyo caafimaad ku raxayso noloshaada. Assalaamu calaykum. Have a good day.